سعادة الوزير وحوي ضدك عن كبره حريد حسن علي وحوي قضية صوماليات سياسي صوماليات حوجا كاميرا ده مكير دول خير أساسي ده وكوكا رجي مدقنا تاي حريد حسن علي وحوي قضية صوماليات ويا وأنا سياسي رد بنتلانا وزير كسر نقضي دولة دفاع وزير كحين كهولها جود بصون نقضي هدي لها يكون حكمايو حلبان بها إلى لبدي يكون عبد القاسم ولا سو شقي عبد الله يشوف ولا سو شقي شريف ولا سو شقي حسن لكن وحوي حسن بس مارتي سياسة مركز وحوي كتابشة وجود مسي ساعات الوزير سودو وكاغم هالعلني يا ورئيسي إلى وداعي سو حتى فرانسيسكا كسوكان تاي مقالة باريس وكسودو وينية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شينا وكو سلامي وأنا كم هاتسنتهاي سو عدا سو وعدي دمان dadkana dhageysanaya wana daawanaya iyagana waxa weey waa salaamaya marka codkayga ma la maqlaya si fiican baa ku maqlaya waa kaaga mahadcelinaya ina maartay iga aqbasho inaan wareysi ka qaado xareed waxa weey wareysigeenu seen ku balnay wuxuu ku saabsan yahay dekada garacad oo ilaa shalay warkeedu baraha bulshada ku batay arintaas aan rabaa inaan ku finno dekada garacad dad badan oo Soomaaliyeed shalay bay u ahayd qorshaheedu bal waxa xog naga siisaa dad badan waxay leeyihiin dekada tan markii hobyo la maqlay baa reerka halka degan waxa weey tan ay bilaabeen bal qorshaha dekada garacad goor mu soo bilaabmay ilaa xilliga ku sidnaa qorshaheeda bal noo yara faahfaahin bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay shiina adiga iyo dadweynaha dhageysanaya ama na daawanaya intaba salaantii hore islaamkaan idinku salaamay horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa shacabka Puntland iyo madaxda reer Puntland sida milgaha leh iyo gobonimada leh oo ay u soo dhaweeyeen waftigii ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada oo ay u maamuseen horta waan uga mahadnaqayaa waana wax la isku ogaa weeye dawladda Soomaaliyeed oo dawladdaas dadka deeqda taas waa intaas oo qoladaas martida loo yahay reer Puntland qaabka hadda ay wax u maamuleen waa u soo dhaweynaynaa waana ku mahadsan yihiin mid aad weydiisay su'aasha haddaan guda galo garacad dekedeeda wax hadeer ku soo booda ma ahayn wax muddo socday bay ahayd ilaa 3 sano 4 sano dhaqaale la ururinayay anigu waan ka warqabay dad ganacsataa oo Soomaali oo dhan ah ma ahan gobolka kaliya iyo sida hadda loo dhigayo oo laga dhigayo in hal reer ay meeshaas ay ayagu wax ka taagayaan ma ahan waa meel dadkaas mudug degan oo dhan ama Soomaali oo dhan saan filayo ay dhaqaale isku darsadeen oo niman ganacsataa iyo dad ganacsataa isimaduna wax ka ogaayeen anigu intaan ka ogaa marka arrinka dekada garacad sidaas uu ahaa wax hadeer ku soo boodana ma ahayn wax hadda hobyo la kowsadayna ma ahayn wax dhowr sano socday buu ahaa ma garad waayahay arrinta garacad waa u soo noqonaynaa hadalkaaga waxa ka mid ahayd ummadda reer Puntland martida loo yahay ereyga martida doodo badan baa ka dhashay waxa weeye idaacado kelmadda adeegsaday aad baa reer Puntland ugu eedeeyeen waxay sheegeen ra'iisul wasaare inaanu marti ahayn adoo hadda nin mas'uulana waxa hadalka ka soo yeertay inuu Puntland marti loo yahay taasoo micnaheedu yahay waftiga ra'iisul wasaare inay marti yihiin ma waxa aaminsan tahay ra'iisul wasaare inuu garow marti ku yahay ha marti waxa la yiraahdaa dadka waxaan u malaynayaa af Soomaaligi baa ka dhumay baan u malaynayaa shiina hadii adigu guriga hadda aad degan tahay ka tagtid oo waxa tagtid magaalo kale oo Jarmalka gudihiisa ah marti baad ku tahay marka laba qaybood buu ereygu noqonayaa mas'uuliyadda dalka prime ministerka iyo golaha wasiirada iyo madaxweynaha iskale laakiin martinimadu ma aha gurigaaga haddaad ka tagtid musaafir baa tahay taas weeye midda laga hadlayo laakiin shaqada dawladnimo iyo mas'uuliyadda dalka uu hayo ra'iisul wasaaruhu hadduu Puntland joogo iyo hadduu Galmudug joogo iyo hadduu joogo xamar hadduu joogo iyo Kismaayo hadduu joogo Jubbaland intaba asaga yani ra'iisul wasaare dalka uu ah mas'uuliyaddeedina asaga haya laakiin ereyga marti iyo musaafir waa saa macnihiisu gurigaaga haddaad ka tagtid oo xaafad kale aad tagtid oo inta wardhiigle ka tagtid hodan aad tagtid waxa weeye marti baad ku tahay xaafadda waa intaa weeye macnuhu wasiir waa sax weeye haddaan guriga ka baxo guriga kale tago marti baan ahay laakiin guriga aan martida ku ahay waa guri nin kale mas'uul ka yahay
ra'iisul wasaaruhu wuxuu yimi muqdisho ka yimi garow yimi garowna isagaa mas'uul ka ah isagaa madaxdii u ah marka meeluu mas'uul ka yahay oo madax u yahay sidee buu marti uga noqonaya maya dee martida laga hadlayaa waxa weeye hadda haddii la yidhaahdo ra'iisul wasaaraha adigu hadda shaqo ka bilow garowe iyo hay-adaha hadda ka shaqaynayay meel wax ka bilaabo garanmayo martinimadu sidaa weeye laakiin ma ahan taladii inaan laga qaadanayn oo dalka isagaa mas-uul ka ah marka ereygaa waa arkayey wariye b b c da wuxuu weydiiyey prime ministerka wax weynna hadda ereygaasu ma ahayn martinimaduna wax weyn ma ahayn ma ahan marka ereygaa waxaan jeclaan lahaa in sidiisa loo qaato qofku hadduu gurigiisa ka tago oo guri kala tago dee waana musaafur waana marti wax weyn ma ahan ma garata waayahay arrinta dekedeena usoo noqonaynaa dekeda waxaa sheegtay inay muddo badan soo socotay inay maaragtay mashruuc ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexeeya uu yahay hadduu ahaa dekeda tani ahayd wax muddo dheer soo socday oo qorshaheedu uusan hadda bilaaban maxaa ku dhahdaa kusoo beegay dhowr bilood kadib markii dekeda hobyo la dhagax dhigay maxaa iyada kusoo beegay hadduu qorshe dhammaystiran ahaa markii farmaajo puntland marayay intaanu hobyo aadin oo hobyo dhagax dhigin maxaa loo leexin waayo isagu u dhagax dhigi waay mayniyo mas-uuliyaddaas shiino waa waxaan u malaynayaa inay kusoo noqon doonto dowladda dhexe iyo madaxweynaha khaasatan madaxweynaha dowladda dhexe maxamed cabdullaahi farmaajo lianna waan dhegaysanayey adna inaad dhegaysataan u malaynayaa isimadii ka hadlay garacad waxay caddeeyeen inay kala hadleen madaxweynaha arrinkaas intuusanba xagga u gudbinayo gobollada kale iyo maamul goboleedyada kale intuusan marinin isaguna uu ka ballan qaaday oo uu yiri waxaan idiin soo dirayaa prime ministerka prime ministerkiina waa uu soo diray oo waa la soo diray oo waa yimid puntland jadwalkiina anigu waa aragnay oo jadwalka ra'iisul wasaaraha iyo puntland ay isticmaalayeen oo qaabka shaqa wadareedka ay shaqadu u soconayso u dhacaysay way ku jirtay dekeda garacad anigu jadwalka sidaan ka arkay 31 bisha July prime ministerka iyo madaxweynaha puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada labada dhinacba inay israacaan waxaan xataa la socday in ganacsatadu ay diyaariyeen agabkii diyaaradihii oo xataa dowladda iyada aan kharash ka baxaynin oo ay diyaaradihii garowe fadhiyeen waxaas oo dhan sidaasay u socdeen aniguna waa la socday marka waxaan u malaynayaa khilaaf meesha hadduu ka yimaado mas-uuliyaddaas waxaa yeelanaya dowladda dhexe iyo madaxweynaha leanna waxa weye dadka hadda mudug wada dega waa dad wada dhashay weeye dad wax kala ahna ma ahan waana la dhammayn karay oo haddii hadda labada dekedood leeyahay way isu dhow yihiin midda hobyo iyo midda garacad waa u soo gelaynaa waxaan ku weydiinayaa ra'iisul wasaaraha dekeda inuu dhagax dhigo waxaan ahayn miyaa laga rabay dhagax dhig waxaan ahayn miyaa laga rabay dhaqaale laga doonayo inuu dekeda ku kabo miyaa laga doonayay maya nimankan dadkan ganacsatada niman yaana oranaya gabdhaba way isugu jiraane iyagaa waxoodii diyaarsaday ma ahayn wax laga doonayay dowladda dhexe kharash laga raadinayay ma jirinin marka kharashku iyagaaba xataa service garaynayo diyaaradahooda iyo waxooda iyo agabkooda iyagaa waday marka anigu waan la socday marka arrinkaasu sidaasu ahaa shiino wax dowladda laga rabo dhaqaalaha ma jirin inay kaliya toola sharciyeeyaan oo dowladda dhexe dalkii ayadaa mas-uul ka ah inay iyagu sharciyeeyaan oo sharciyaddii يعني برايم مينسترku uu dhagax dhigo iyo wasiirka dekedaha iyo wixii kale la socdo golo wasiiraha sidaas ay ahayd waxaan ka codsanayaa markale kaamirada ina xoogaa isku si fiican uga durugto isuguna beegto dad baa waxay leeyihiin odaygu bidaartu qarinaya marka garkiiba ku beegaya dad baa leh marka wasiir haddii ra'iisul wasaaraha aan dhaqaale laga rabin oo dadku ay iyagu waxooda soo diyaarsadeen maxaa marka ku jaban haddii uu cabdulle dhagax dhigo iyo haddii ra'iisul wasaaruhu dhagax dhigo maxaa ku jaban maya de waxa ku jaban maadaama dowladdii dhexe ay timid oo xukuumadda mas-uulkii u sarreeyeyna uu joogo way fiican tahay wixii si aan loogu arag wax hadda gobol iyo maamul goboleed keliya ay wataan oo si gaara loo wato dowladda dhexe inay wax ka og tahay oo sharciyadeedii la mariyo waa wax meesha ku jira weeye ra'iisul wasaaruhuna dalka isagaa xukuma oo ra'iisul wasaare u ah marka anigu waxaan qabaa inay waajibkoodii ka soo baxeen qoladaas hadda nidaamka watay dekeda garacad oo iyagu ay si maamuus iyo si hufana iyagu ra'iisul wasaarahooda iyo madaxweynaha labadaba madaxweynaha meesha way ku ogaayeen waana uu joogay dalkan isaga hadda madaxweyne ka cabdiweli cali gaas laakiin
dee labadaba haddii laysku helayo waa wax fiican weeye. haddii ra'iisul wasaare uu cudur daartay sabab kasta ha u sababeeyo oo yiri war anigu dhagaxa dhigi kari maye cabdiweli haydiin dhigo maxaa keenay in arrintaas cudur loo arko maxaan ku rahdaayay dhaleeceyn badan ra'iisul wasaare aad ugu soo jeedisaan may horta dee shiino waxaad ogaataa mas-uuliyadda dowladda dhexe ma ahan keliya markii inta gabdho iyo dhalinyaro iyo odayaal la soo saaro sawirrada la iska qaadayo oo heesaha iyo sacabada la garaacaye markii arrintu kharaar tahayna waxaa laga rabaa dowladda mas-uuliyiinta ama prime ministerka ama madaxweynaha ama golaha wasiirada bahashu markay kharaar tahayna inay soo dhex galaan baa la rabaa markay bahashu sacab iyo heese joogtana inay dhex maraan oo dhex mushaaxaan tatay iyo lasoo xirto suud dee wax meesha ku jira ma ahan adigu talada hadday kharaar tahay iyo hadday macaan tahay labadaba mas-uuliyadda adaa qaaday marka haddii dhib ka imaanayo iyagu ay garanayaan inay dhib ka imaanayaan waxay ahayd inaysan warwareegina inay bareeraan oo yidhaahdaan this and this baan arrintan loo samayn karaynin ama sidaan iyo sidaan bay ku qurux badan tahay inta dadkii lala fadhiisto ama hobyo ha noqoto ama garacad ha noqoto dadkaas dad isdiidaya ma ahan meeshiina dee laba maamul baa ka jiro hadda haddii la leeyahay meeshii gobolkii labadii degmo waa isu dhow yihiin haddii laba maamul bay ka kala tirsan yihiin waayahay taa waa u gudagelaynaa waa usoo noqonaynaa waxaan ku weydiinayaa reer Puntland dad badan oo baraha bulshada ka hadlaya oo ka carooday inaan ra'iisul wasaaruhu dhagax dhigin qaarkood waxay u sababeynayaan waxay leeyihiin ra'iisul wasaaruhu 4.5 reer buu ku joogaa reerkii baa hobyo leh marka danahoodii buu ilaalinayaa qaarkood waxay leeyihiin waa nin galmudug ka soo jeeda oo saasaa keentay inuu maartay Puntland ka xagliyo arrimahaas adiga ma kuu muuqataa may ima muuqato waana wax iska waa waxaan u malaynayaa waa ra'yi iska gaaban weeye prime ministerku isagaa jecel baan u malaynayaa inuu legacy ka tago iyo magac reerna hadda qof wax u qabanamayo magacuu ku fadhiyana magac reereed maahan waa magac Soomaaliyeed weeye aniga taasu ima muuqato wax meesha ku jirana maahan prime minister Soomaaliyeed weeye marka laakiin waxaan filayaa culays baa soo fuulay culays reereedna maahan culays ka soo fuulay waa culays ka weyn weeye reer iyo waxaas marka wixii uu xirxirayay oo weerarayay oo xamar ku weerarayay oo dowladda raaca uu lahaa reerkiisay ahayd marka waxaas looma saarin karo lama oran karo reerkiisa ku dhaliyay waxaas waa iska fadhi ku dirir baan u malaynayaa shiino waayahay gobolka mudug hobyo iyo garacadba gobolka mudug bay ka wada tirsan yihiin dadka qaarkiis waxay qabaan gobol keliya oo dadka ku nool ay tir ahaan aysan aad u badnayn maxaa keenay inuu hobyo bacdama dekad laga dhisayo inaad dekad kale xagga inkuna maartay ka bilowdaan ma waysan ku habooneen in dekada hobyo la wada wadaago oo iyada la wada dhisto oo xoog iyada la isugu geeyo waa su'aal fiican weeye shiina anigu hadda maba diidaniba dekada hobyo iyo dekada garacad dadka dega labadaba waa dad ehla weeye waana dad hadda wada dhashay weeye waxna aan kala ahayn anigu hadda mana ahi dadka hadda wax kala qoqobaya laakiin waxaan kuu sheegayaa mar labaad baan kuugu celinayaa mas-uuliyaddaas waxay ahayd madaxweynuhu markuu meesha marayay sharqantaa hadday soo gaartay arrintaa inuu halkaa ku qabtay ahayd intaan dhagxaan meel kale la dhigin intaan meel kale la aadin inuu bareeray ahayd dowladnimaduna waxa weeye waa inuu qofku bareeri karaa weeye maahan qofku inuu dhuundhuunto oo laalaabto oo warwareega maahan haddaad inta mas-uuliyaddaadii ka dhuundhuumatid oo ka warwareegtid waxaan oo kale hadhow kugu soo furmaya waadi baa kugu soo furmaya marka inuu bareeray ahayd oo yidhaahdo markuu gaalkacyo marayay dekedan garacad joojiya middaa hobyaa la wada isticmaalayaa isu keeno labada qolo wada hadal siiyo qaabka loo isticmaalayo haddii ay middaas garacad horreysay oo asaga isimadu say u hadlayeen iyo ganacsatadu asaga ay ku horreeyeenna waxay inuu midda dambe joojiyo oo hobyo joojiyo oo yidhaahdo dekedaa garacad baa horreysay wada hadla isu keeno meel isugu keeno haddaba waa la wada degan yahay gobolka waana wax dhibana kama jiraan hal garoon baa la wada isticmaalaa oo gaalkacyo ku yaala marka dadka waa la heshiisiin karaayo dadka dowladda isu keeni kartaa haddii iyagu xataa markaas xoogaa kala durugsan yihiin mas-uuliyaddii iyo roolkii dowladda dhexaa meesha ka maqan galmudug waxay ku doodaysaa inaysan deked lahayn ay maamuladiina ay laga maarmaan tahay maamulku inuu deked leeyahay si ay miisaaniyadda maaragtay dakhli ay u helaan idinku boosaasaa leedihiin gaariga boosas ka tagaa gaalkacyo wuxuu ku tegayaa saacado kooban
buu ku tegayaa maxaa idin diiday maamulkaas deriska idinla ah waxa way dad Soomaaliyeed walaalihiina ina idinku u tanaasushaan oo hadda iyadu wax kala soo degi lahaydeen iyo hadda boos aadi lahaydeenba idinku tiina boosaaso iska imaastaan horta shiina waxaan kuu sheegayaa dekado horta qabiil ma yeeshaan gobollo ma yeesho dekadaha iyo ayraboorada iyo xuduudaha iyo lacagta waa waxyaalaha dowladda dhexe ay maamulayso oo federaalku uu mas'uuliyadiisa qaadanayo weeye dekada berbera Soomaaliya oo dhan baa leh dekada boosaaso Soomaaliya oo dhan baa leh canshuurtii Soomaaliyeed baa lagu dhisay dekada Kismaayo Soomaaliya oo dhan baa leh dekada Muqdisho Soomaaliya oo dhan baa leh dekad reer yeelanaya oo meel fadhiyaysa ma jirto Soomaaliya oo dhan iyo waa la og yahay Soomaaliya oo dhan inay leedahay laakiin Soomaaliya oo dhan uma sinna berbera reer Somaliland oo maxaan ku dhahdaa reer majority ka yahay baa gacanta ku haya boosaaso waxaan ku dhahdaa Puntland oo reer majority ku yahay baa gacanta ku haya maxaan ku dhahdaa qof koonfur ka yimi maamul kama noqon karo xataa Bitoni kama noqon karo marka say isu qabanaysaa say isu waafaqaysaa marka boosaaso qof Soomaaliya koonfur ka yimaado Bitoni ka yimi adigu haddaad koonfur galbeed ka timid ama beledweyne ka timid oo boosaaso iyo berbere wax ka dhoofsanaysa cid baa ku dhahaysaa taargaa kugu taala waxba ma dhoofsanaysid yaa ku dhahaya maya dubayba waxbaa ka dhoofsan karaa laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeye inaan waxa weeye hantidii wax ku leeyahay bacdama hanti Soomaaliyeed tahay inaan wax ku leeyahay inaan maamul ka noqon karo inaan maxaan ku dhahdaayay wax ku yeelan karo taladeeda iyo wax walba inaan wax ku yeelan karo dubayba cid iga soo hor istaagayso dadku lacag buu rabaa taas laga hadlimayo adeeg laga hadlimayo laakiin lahaanshihii baa laga hadlayaa lahaanshihii waxa weeye dhibaatada waxa keenaya shiina ma ahan dadku dekadahan lama kala lahan laakiin dhibaatada waxa keenaya waa dagaaladii sokeeye iyo qabaa'ilaadkii meele loo kala guurguuray oo qabiil walba hadda meel u batay waa intaa un weeye hadda wax dekadoo qabiil yeelanaya iyo maamul gaara ma jiree dowladduna hadday xoogaysato oo dowladda dhexe xoogaysato waxyaalo badan oo hadda maamulada gacantooda ku jira xataa waa ka soo wareegayaan ma garan waa gartay waxaan ku weydiinayaa ra'iisul wasaaruhu hadda hadduu ka baaqday meeshii oo caradaas badan ay ka dhalatay oo dad badan ay dhaliilayaan saameyn intee la eg bay ku yeelanaysaa xiriirkii wada shaqayneed ee dowladda federaalka iyo maamulka Puntland halka ay ugu soo celishiino waa khadka waxay ka dhex galeen baan mareynay ha haddii ra'iisul wasaaruhu ka baaqday inuu dekada dhagax dhigo carab badan ay ka dhalatay siyaabo kala duwan dadku uga hadleen saameyn intee la eg ba arrintaas ku yeelanaysaa xiriirkii wada shaqayneed ee dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ma dekadii waa la dhagax dhigay waad arkayseen dadkoo dhan waa daawanayay saan jeclahayna way soconaysaa oo taasi muran kama taagno dadkaas xoolahooda ayagaa urursaday dowladdana hadda xoola ayagu kama ay rabinin dowlado kaloo sheegana lacag kama ay doonaynin sharciyeyntaa iyo noo waayeeleeya iyo dowladda dhexe inay meeshii ka muuqato dowladda dhexena sharaf bay u ahayd dadka deegaankana sharaf bay u ahayd labadaba marka taasay ahayd anigu hadda u malaynmayo wax dhiba hadda ka taagan ma jiraan waxaan u malaynayaa hadda hadday diideen dhagixii la dhigayay markii hore inay yimaadaan waxaan u malaynayaa markay dhammaato xarigga inay furi doonaan baan u malaynayaa saasaan rajaynaya haddii ilaahay ugu dambeyntii dadka reer Puntland siyaabaha kala duwan u arkay arrintaas maxaa ugu baaqaysaa iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba dadka reer Puntland waxaa leeyahay dowladda dhexe iyo dowladdiina labadaba la shaqeeya hawsha horumarkaana dee waa in laga shaqeeyaa oo qof kastoo Soomaaliya meel kastoo uu joogo dalkan wuxuu u baahan yahay in kaabayaasha dhaqaalaha laga dhiso dekeduhuna wax dhiba hadda ma keenayaan dekeda hadda Mombasa iyo dekeda Laamo dhowr boqol oo kiiloomitir bay isu jiraan Laamana deked weyn baa laga dhisayaa oo Afrikadaas East Africa goboladaas laakiin Laamo waa Kenya Kismaayona waa Soomaaliya hobyo iyo garacadna labaduba waa Soomaaliya mayshiina iikaada waxaan ka wadaa yani Mombasa iyo Laamo waa degmo iyo deked weyn oo kala diin Mombasa ku taala Laamana waxaa laga dhisayaa deked weyn baa waxaa ka dhisaya Dooxa Qatar iyo Imaaraadka iyo Maqan qola ay ahayd hadda ma xusuustee marka wax dhiba ma keenayso Kismaayo iyo Mombasa 500 kiiloomitir bay isu jiraan marka dekedaha hadda dadku sida sensitive uga yahay oo ay leeyihiin ma dhici karto iyo macquul ma ahan oo wixii ay ka dhigayaan si reer guraagi meel degi jiray oo xoolaha la ima soo dhawaan karo arrinku sidaa ma ahan wax dhibana inay ka imaanayaan anigu u malaynmayo marka taa hubiya haddii la dhis labada dekedood tii un la hor dhiso un baa kulli la isticmaali doonaa
soomaalina waa wada isticmaalaysaa cid gaara iyo reer gaar oo yeelanayaana ma jiro laakiin hadda dad unbaa gacanta ku haya dee mas-uuliyad walbana dad baa qaadee dadku ma wada sameeyo wixii la samaynayo ugu dambeynta su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxa weeye muddadii burburka Soomaalidu ku jirtay dekad cusub lama dhisin iska dhaaf kuwa la dhisay kuwii cashuurta laga qaadayay oo berbera leh oo boosaaso leh oo muqdisho leh oo kismaayo leh baan waxba lagu kordhin marka raja intee leeg baa ka qabtaa dekad maxaan ku dhahdaa maamul goboleed lagu suntayo ama qabiilba loogu xaqlinayo dadka qaarkiis ay u dhigayaan in la dhiso raja intee leeg baa ka qabtaa halkaa igu celishino muddadii burburka Soomaali dekad ma dhisan dekadihii la dhisayna dekadii dawladda dhexe laga dhaxlayna waa dayacan yihiin kuwii lacagta laga qaadayo waxba laguma celiyo marka raja intee leeg baa ka qabtaa in dekadaha hadda maxaa ku maamul goboleedyada ama maaragtay dadka qaarkii qabiilka u tirinayaan inay dhismaan raja intee leeg baa ka qabtaa ama hobyo ha ahaato ama garaac ha ahaato horta may halkaas shiina waa kuu saxayaa dekadihii hore wax waa laga qabtay anigu waan joogay dekada muqdisho waxbaa laga qabtay iyadoo biyihii soo galeen oo dilaacday wax weyn baa laga qabtay haddana way shaqaysaa habeen iyo maalinba way shaqaysaa baan maqlayay waana wax lagu faani karo weeye ilaahay baana mahadda iskale dekada muqdisho waxbaa laga qabtay midda boosaaso laftigeeda waa la dayac tiray oo waxaa laga bixiyey ciiddii iyo way aasantay oo dekadaha dee shaqay u baahan yihiin wax walbana gacan ku hayn bay rabaan dowladdii dhexe markay meesha ka baxday iyada laftigeeda dekada boosaaso waa la qoday deep stageeda iyo waxeedoo dhan waa la sameeyey dekada berberana sidoo kale dekada kismaayana waxaaba laga soo saaray maraakiib gudaha ku jiray marka wax waa laga qabqabtay oo ma ahayn inaan wax la qabana wax waa la qabtay tabartu ha iska yaraato roolkii dowladdii dhexe meesha ka maqnaado laakiin waa la dadaalay marka anigu waxaan qabaa hadda haddii dekado cusubna la dhisayo waa horumar wax dhibaataana ka imaan mayaan yaanan la sharaysanin waa wax khayr soo kordhay waa horumar soo kordhay haddii hadda la midayn karo oo dowladda dhexe sidaan hadda sheegay oo hadalka aan ku bilaabay roolkeeda intay qaadato hadday markii hore gaftay hadda intaan haddii midib bilaabato midda kale intaysan bilaaban hadday dadkii isu keeni karaan labada hawloodba wadayna way ka sii fiicnaan lahayd haddii lagu yiraahdo dekada garacad ka tanaasul oo tan hobyo wax ka dhiso oo wax kala soo digo waxa qayb ka noqon qorshahaas aduma ku qancaysaa ma yeelaysaa maxaan ugu qanci waaye maxaa ii diidaya haddaba dekada muqdishoan kala alaabta lagala degaa soomaali oo dhan dekada muqdisho ay isticmaali jirtay iyo dekada berbera maxaa shiina diidaya anagu dadkan dhalinyaradan facebooka ma nihin hadda dhashay oo 20 sano qabiilku dilooday oo qabyaalada ku koray iyo reeraha soomaaliya oo dhan waxay isticmaali jirtay dekada muqdisho iyo dekada berbera marka maxaa diidaya maxaan u diidaya anigu hubiyana wax kala dego maxaa ii diidaya aad iyo aad baa u mahadsan tahay wasiir xareed xasan cali waa kaaga mahad celinayaa oo soo noqday wasiir ku-xigeenkii howlaha guud ee dowladdii kumeel gaarka ahayd muddo 12 sano ka badan xildhibaan federaalka ahaa siyaasi reer puntland gaar ahaan gobolka mudug kasoo jeeda aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa daawadayaasha waa mahadsantihiin waraysiga kan waxaan soo gelin doonaa oo aad ka heli doontaan qofkii raba inuu dib u daawado shiina horta waa mahadsan tahay waa adigii lahaa oo bidaar baad leedahay u malaynaya aad qarinaysaa bidaartii horta inaanan lahayn ma ku tusaan aan ku tuso bidaartii inaanan lahayn marka ma shuka odash kansanayaa tahay odash kansi doonaad gabardoon baad waa ku salaamayaa shiina waa ku salaamayaa adiga iyo asxaabtaada iyo beijkaaga iyo waryanimadaada iyo dad badan baa kugu xiran waa ku ogahay nin aftaanaad tahay wariyanimadii waxaad ku tirsatay aftahanimo nin aftahanaad tahay waa ku ogahay wariyanimadii marka waxaad ku tirsatay xoogaa aftahanimaa baad ku darsatay marka beijkaagana waa ogahay oo dad badan baa ku xiran waa ku salaamayaa adiga iyo asxaabtaada aad iyo aad baa u mahadsan tahay hadda 1200 baa ina daawanayay waraysiga kan waxaan gelinayaa barteeda YouTube ee Shiina Culay halkaas ciidii rabtay inay dib u daawato ama cid kale la wadaagto ay ka helaysaa barta YouTube ee Shiina Culay halkaasaan gelinayaa Shiina Culay halkaas kala socda subscribe soo dhaha goordhow aan soo gelinayaa sidoo kale waxaan goordhow wareysanayaa haddii ii suurto gasho oday siyaasiya oo la igu maqan yahay oo galmudug ka tirsan oo isagana aan ka wareysan doono dekada hobyo iyo xaaladaheeda marka barteeda Facebook ee Shiina Culay wareysiga kan halka ka daalacda halka waan ka saaraya xaggaasaan u wareejinayaa subscribe-na halka la iga soo dhaho aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin wareysiga latana inaad u soo jeedaysaan baa filaya wasiir mar kale aad iyo aad baa u mahadsan tahay
waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum.